السلام عليكم لما أصحاب تشرفت السود وهذا كنا هالكادي على سعوتنا وخضر اوفيشيال maanta muuqaaladii hore muuqaalkan aan wada uu ka duwan yahay runaantii waa muuqaal magaranaysa ay qiiradiisa wata waa hooyo Soomaaliyeed oo Sweden ku dhibaataysan wiilkeedii yani uu Liibiya ku xiran yahay uu magafa haysto insha Allah qof walba oo Soomaaliya waxaan ka codsan lahaa ama dhammaan asxaabtaygu jirto dhammaan waxaan ka codsan lahaa qof kastaba wuxuu ku soo caawin karo inuu hooyada Soomaaliyeed ku soo caawiyo uu garab qabto insha Allah ummaddu waxay sugan yihiin yani in iska garab qabto dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed cid walba qof kasta yar iyo weyn saqiir iyo kabiir inta waan ka codsanayaa inaad hooyada Soomaaliyeed soo caawisaan qof walba wuxuu karo inuu ku soo caawiyo insha Allah khayr badan bay ni rajaynayaa iska caqabad fiican insha Allah فكيدنا وكشاشة قرن إن شاء الله تلفك كلا صح جلسان مقال كان نسي شير قرية والسلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا رايق الصومالي ميرو بدوينك جوكتان وني سلام يا مقعيق ولا لا محل لها عاش آدم ولا راح نقول ولا وطن كسويدن ولا لا الوطن كان تدبع عيالان كل لي صدح هي قالوا ذي قاعدتي أفر عنو بايل النول mana shaqeeyo hooyo kaligeeda ahay walaalayaal hal cunug ayaa Soomaaliya joogay halka cunug baa walaalayaal soo tahriibay maalintii Khamiis ayaa waxay soo wacay ninka la dhaho Mugafe wuxuu iga dalbaday in cunugayga soo gacantiisa ay ku jirto 13,500 lacagta Mareykanka ayuu dalbaday lacagtaasna walaalayaal ma awoodo klibkana waxaan u soo duubay walaalahayga Soomaaliyeed meel walba adduunka ka joogan qabiil la uma duubin walaalayaal walaal la uma duubin adeer uma duubin habar yar uma duubin abti uma duubin ehel uma duubin klibkan waxaan u soo duubay walaalahayga Soomaaliyeed meel walba adduunka ku joogan walaalayaal cunugiisa waa mar walba garaacay ayuu soo diray maanta uu dambeysay soo diray xataa